tababarkani oo ku saabsanaa daryeelka iyo daaweynta dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku nool gobolada Soomaaliland isla markaana socon doona muddo 5 cisho ah ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama kaasoo ay ka qayb qaadanayeen dhakhaatiir ka socday xarumaha lagu taakuleeyo cudurrada maanka ee ku yaala gobolada Soomaaliland. tababarkan ay ka kaashanayeen wasaaradda horumarinta caafimaadka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Camuud iyo sidoo kale hay'adda SSRA oo fadhigeedu yahay dalka Sweden ayaa waxa furitaanka tababarkani goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka heer qaran madaxda wasaaraddaasi ee gobolka Awdal iyo sidoo kale hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Camuud. ugu horreyn waxa hadalka qaatay Dr. Yacquub Aadan oo ka socday hay'adda SSRA maanta halkan waxa isku yimiday dhakhaatiirta iyo nursingka ugu waayaragsan aqoonta badanna leh gobolada shanta gobol ee uu ka jiro meelaha lagu taakuleeyo cudurrada maanka ay ka mid tahay Burco, Berbera, Hargeysa, Gabiley iyo Boorama. 5 cisho ayaan rajaynaynaa halkan lagu qaato lagu gurfeeyo waxa la qabto sidii aanu hagaajin lahayn waxaan ka wada simannahay oo hagaajinta daryeelka caafimaadka dadka maanka xanuunsanaya ee gobol waliba. sidoo kale madaxa xarumaha caafimaadka asaasiga ee gobolka Awdal Dr. Farxaan Cabdisamed Cismaan hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Camuud Siciid Axmed Walhad iyo sidoo kale Liibaan Axmed Xirsi oo ka socday wasaaradda caafimaadka heer qaran oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yiraahdeen waxaan leenahay maanta kulli waa furitaankii workshop-kan oo socon doona 5 cisho kaasoo ku saabsan mental health programkii ka socday dhammaan Somaliland ama gobolka Awdal dhammaan degmooyinka 4 degmaba uu ka socdaa imka programkaasi si fiican buuna u socdaa. waxaan rabnaa inaad Somaliland dhan wada gaarsiisaan waxaan rabnaa dadka masaakiinta in ehelka lahayn ninka macnaha xanuunada qaba ehel male banaankaas lagu xidhaa silsilad lagu xidhaa oo kaadida iyo xaarka dhex jiifa cuntadana meel halkaas loo dhigaa dadka inaad dhibaatada ka saartaan waxaad ku heli faa'iido adduunyo faa'iido aakhiraba wada heli doontaan haddii alla yiraahdo. maanta waxaan leenahay waxaanu wada bilaabanaa halgan dheer oo ah inaynu caafimaadka maskaxda ee waddanka oo ka dambeeyay caafimaadka xagga horumarka ka dambeeya caafimaadka kale inaynu soo gaarsiino ama aynu dhaafino adeegyada kale caafimaadka. sidaa awgeed maanta waxay jaanisano tahay in aynu muujino kartideeda iyo socdaalka dheer aynu gelino inaynu dhammaanteen ka midho dhalino. ugu dambeyn waxa tababarkaasi soo xidhay suduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse waxana uu sheegay in gacmaha la isku qabsado sidii daryeel iyo daawo loogu fidin lahaa dadka qaba cudurrada maanka. waan ognahay baahida taala iyadoo aynu ognahay baahida ay u qabaan bulshadeenu caafimaadka hawsha aynu u fadhinaana ay kow ka tahay iyadoo ay priority si kala leedahay qofka maankiisiiba una dhanayn oo dhibaato ay ka jirto haba yaraadee in wax haba yaraatee uu kasban karaa iyada laftirkeegu aynu meeshaasi oolin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo shakhsiyan Mustafa ahaan hawshani oo runtii ay qiimo weyn noogu fadhido ka wasaarad ahaan waan soo dhaweynaynaa diyaar baan u nahay. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Boorama.